أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم وفقنا بما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم علمنا كما علمت آدم، وفهمنا كما فهمت سليمان عليهم السلام، وعلى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وافتح لنا فتوح العارفين. ثم أما بعد. kusoo dhowaada barnaamijkeenii doctor minow dabiib yaqaan. caawa waxaynu idinku haynaa barnaamij aad iyo aad xiise u leh oo ku saabsan markaad takhtar la ballansan tahay. Markaad takhtar la ballansan tahay intaadanba la kulmin, waxaa habboon inaad isdiyaariso oo ay kuu qoran yihiin waxyaabihii aad kala hadli lahayd, ama aad si fiican uga fikirto waxyaabihii aad doonaysa in takhtarka uu wax kaala qabto. baaritaano badan oo laga sameeyey wadahadalka dhex mara bukaanka iyo takhtarka waxay isku waafaqsan yihiin in bukaanka waqti ku filan aan la siin si uu uga dhaadhiciyo takhtarka sababta uu ballanta u samaystay. wax ka yar nus daqiiqo ama 30 ilbiriqsi markuu qofka ka hadlo arrinkiisii ama arrinkeeda, waxaa dhacda inta badan in takhtarka uu hadalka ka soo dhex galo, bukaankana wuxuu sheegi lahaa fursad u helin inuu takhtarka ka dhaadhiciyo. marka qofka waxaa la gudboon inuu inta uusan takhtarka la kulmin inuu diyaarsado waxyaabaha ku kalifay ballan inuu samaysto. hadday suurowdo, isku day inaad qorato waxyaabaha aad rabtid inaad ka hadashid. waqtigu waa qaali, waxaana loo baahan yahay in laga faa'iidaysto. marka lagu weydiiyo maxaan kuu qaban karaa ama maxaa ku keenay maanta, diyaar ha ku ahaadaan waxyaabihii aad rabtay inaad kala hadasho takhtarka oo aad doonayso inuu wax kaala qabto ama wax ay kaala qabato. suurtagal ma aha in waxyaabo fara badan lagu xallin karo hal fadhi, oo aynu ognahay inuusan ka badnayn inta badan 15 daqiiqo. ugu yaraan 1, 2 ama 3 waxyaalood hadday cirka gasho oo muhiim ku ah marka wax lagaala qabto, waxaad dhihi kartaa in kulanka takhtarka uu noqday mid laga faa'iidaystay oo miro dhalay. bukaanka marba inuu mowduuc cusub soo tuuro ma aha iyadoo kii hore aan meel la saarin. hadduu qof yiraahdo madaxa ay xanuunaya, dariskaygana daawo xanuun baabi'isa ah baan ka qaatay oo laxawgii wuu ka sii daray, calooshana waa layga maroojinayaa, dhabarkana lagama sheekayn karo oo anoo caruur ahaa geel i haraantiyey, lugtana maswabaayo leh, intuu iqaninay baa suntiisii igu soo kacdaa sidaan u joogaba, dhagahana guux baa ka yeeraya oo habeenkii kama hurdo. waxaan kaloo kuu sheegi lahaa inaan waxba urin intii dhowr sano ah, dhadhankana uu aad iyo aad ayuu ugu yaryahay. marka waxaynu arkaynaa in qofkani aan tusaalaha usoo qaatay uu waxyaabo fara badan oo mid walbaba u baahan hal fadhi in laga munaaqashoodo oo laga wada xaajoodo isaga iyo takhtarka, in uu markaa faa'iidooyin ayn meesha ka soo soconin oo takhtarkiina ku wareerayo. arrinkan wuxuu keenayaa in takhtarka iyo bukaanka isku wareeraan. marka takhtarka uu isku daya inuu xoog saaro hal qodob, inuu si fiican u lafaguro su-aalaha lagu weydiinayo oo qodobka la xiriira, isku day inaad uga jawaabto takhtarka si ay ugu fududaato inuu wax kuula qabto, ee marba meel ha u boodin. daawo haddaad qaadato, isku day inaad barato magaceeda. waan ogahay daawooyinka inta badan magacyadooda sidii loogu dhawaaqi lahaa way dhib badan yihiin, laakiin ku dhawaaqideedina hadday markaa dhib ku keenayso, soo qor ama sawir ka qaad oo markaa takhtarka tusi si markaa uu arko daawada aad qaadanayso ama daawooyinka aad qaadanayso. sidoo kale waa muhiim inaad xasuusato haddii daawo aad xasaasiyad ama allergy aad ka qaaday. meel ku qoro daawada magaceeda si aadan u ilaabin weligaa, insha allah. takhtarkana khaasatan hadduu yahay mid kuga cusub, u sheeg daawada ama daawooyinka aad xasaasiyad ka qaaday. haddii aad qabto cudur ama cudurro, isku day inaad barato magacyadooda, waxa lagu daaweeyo, waxa u daran, waxa u wanaagsan,
iyo wixii kaloo aad ka baran karto. Isku day inaad kordhiso aqoontaada guud ee caafimaadka jirkaaga, wax ka baro jirkaaga iyo sida uu u shaqeeyo inta suurtagal ku ah. Talada caafimaad ka qaado takhtarkaaga iyo kalkaaliyayaasha la shaqeeya iyo dadkii kaloo takhasus u leh. Waxaad arkaysaa dadka qaarkood inay talooyin qaldan bukaanka siiyaan, sidaana qofkii ay lugooyaan iyagoo aan ogeyn xataa dhibaatada ay geysteen ama geysan karaan. Tusaale ahaan, waxaan dhacday gabar yar inay kaadi sokorow ku dhacday. Waalidkeedii waxay kula wareegayeen dad kitaab gaablow ah oo reerka ku yiraahda il baa ku dhacday gabadhan oo waxaa looga bixin karaa in 1 shillings lagu gowraco, dhiiggiisana loogu qubeeyo. Dhakhtarkeedana wuxuu la soo taagan yahay gabadhan insulin in lagu diro ayay u baahan tahay si nafteeda loo badbaadiyo. Aibola oo dariska ahna waxay leedahay warkiisa dhagay jalaq ha u siinina, gabadhan yar daawada jirkeeda la qabsanaya oo wax cirbad ah yaan lagu durin. Marka waxaad arkaysaa in isfaham weyn uu meesha ka jiro, isfaham darro inuu meesha ka jirto. Waalidka inay dhageystaan talada dhakhtarka oo soo bartay cudurkan kaadi sokorowga ama cudurrada kale ee dadka ku dhaca. Haddii la yiraahdo qofkan uu jirkiisa la qabsanayo yaan la siinin wixii uu u baahnaa, waxay keenaysaa qofka naftiisa inay halis gasho. Suurtagal maaha inaan dhahno cunto ma cunayo waayo calooshayda ayaa cuntadii u baranayso. Marka waxay noqonaysaa qofkii inuu gaajo iyo macluul u dhinto. Biyaha sidoo kale, hawada waa maaragtay aan laga maarmin. Marka qofka hadduu kaadi sokorow qabo oo nooca koowaad hadduu yahay, sida tan ilmaha badana ku dhacdo, wuxuu u baahan yahay insulinti. Marka wax jirkiisa ka maqan uu u baahan yahay waaye. Ma aha wax maaragtay kibir loo siinayo, waa wax laga maarmaan ah. Marka waa fikrad khalad ah in la yiraahdo jirkeeda ayaa la qabsanayo. Marka warkiyo kooban in laga dhageysto talooyinka dadka bartay sida takhaatiirta iyo kalkaaliyaasha la shaqeeya. Waxaa kaloo iga tala ah haddii ayan degdeg jirin inaad balanta ku aadisato subaxdii. Hadday suurtagal tahayna inaad noqoto qofka ugu horeeya oo maalinta lala kulmayo inaad noqoto. Subaxdii takhtarkii oo carcartiisa qaba oo soo nastay baad la kulmaysaa inta badan. Mashquulkii maalintan saa weli uma saameyn oo si dhug leh in lagu dhageysto oo tayada waxqabadkana ay fiicnaato bay u badan tahay. Ugu dambeyntii, in la isku sabro baa wanaagsan. Bukaanka iyo takhtarkana inta badan waa isku ujeedo oo hawsha ayay meel iskula wadaan. In si degan loo wada hadlana waxay qayb weyn ka tahay sidii daryeel wanaagsan loo gaari lahaa. Haddii maalinta aan la soo koobi karin arrimaha aad u baahan tahay, haddii aysan naftaada halis gelinaynin oo arrin degdeg ah aysan jirin, ballamo kale ayaa la qabsadaa oo waa tii hore loo yiri adduun hawli kama dhammaatee. Intaa maanta hanoo joogto barnaamijkeennii Dr. Minow Dabiib Yaqaan. Wixii su'aalo ahna waxaad noogu soo diri kartaa faallooyinka ama kommentiga. Sidaa iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.